قوافي الشعر نهديها إليكم تحلت بالجمال وبالفتون طاب لقاؤنا أحباب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa shabakada injineer yaasiin kusoo dhawaada mar kale iyo silsiladii taxanihii inoo socday sida loogu duubo loona activegareeyo kaasoo aan hadba kusoo bandhigno barnaamijyada aan soo gelino shabakada. maanta barnaamijka aan rabno inaan ka sameyno taxanahan waa barnaamijka easy as data recovery oo caanka ah intiina badanna inaad taqaanaan ayaan filayaa. barnaamijkan waa barnaamij kaa saacidaya sidii aad u soo ceshan lahayd feelashii kaa lumay ama daliid iska dhacday si aad mar labaad aad u soo celin lahayd. waayahay waan bilaabanaynaa aan isla socon insha allah. marka hore banaanka ayaan keensanaynaa passwordka 123. waayahay waan ku duubaynaa barnaamijka. sida caadigeed nakasti accepti aniga hore igu dubnaada waan ka saaray mid cusub ayaan ku duubayaa. alena install okay wuu dhameeyey. waxaa leenahay ka qaad labadaba kadib waxaa leenahay finish. okay waxaan sameynaynaa cragin ayaan banaanka soo dhiganaynaa. waxaan koobiyeynaynaa okay waxaan leenahay illustrator ku kici. active ayaan leenahay. waxaad dhegeysaa ayuu ku meesha uu ku duuban yahay. wuxuu ku dhahaa make sure you could active sida baba please select follow when you install. okay waxaan leenahay wuxuu noogu jiraa annaga program fails easy as okay data recovery select okay activity fiirina hadda wow kii labaad ayaa noo shaqeeyey. kan koowaad hadduu kuu shaqeeyo waa ka haddii kan koowaad kuu shaqeey waayo midka labaad ayaa kuu shaqeynaya. haddaa kan iskaan dhahdo si normala ayuu shaqadii kugu bilaabayaa. aad ayaa umahadsan tihiin sidaa wanaagsan ee aad noola socotaan. waxaan idinka codsanaynaa inaad barnaamijka aad muuqaalka inaad like saartaan asxaabtiin aad la wadaagtaan. waa mahadsan tihiin wabillahi tawfiiq.